بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهوين ما حدا وإسنين صوغل إسو كنا بيغان سيالي طبانك سبتمبر لبضكم لغاتني كو مركا لكسو دوادا مقالة تحنها ها oo ku saabsanaa maadada Ingiriiska ee grade-ka 8aad waxa oo soo hadalnay anaga ku jirna unit-ka labaad ee ku saabsan in the examination room waxaan soo qaadanay questionskiisa ugu horeeya ee ka koobnaa 7 su'aal waxa ku sii xijinaynaa exercise-ka ku xiga oo ah exercise 1 oo ku saabsan vocabulary kuna qoran page-ka 20aad ee buugga exercise 1 markuu leeyahay use isticmaal the words erayada in the box ee ku jira sanduuqa correctly si sax ah u isticmaal to complete si aad u dhameystirtid the sentences below jumlooyinka hoose the sentences below jumlooyinka hoose erayada isticmaalaysid marka ee meelaha banaan ee lagu siin doono oo ay ku dhameystiri doontid waxa kamid ah erayga pass mark waxaa laga wadaa dhibcaha lagu baaso haddii tusaale ahaan imtixaanka 100 darajo lagu saxaayo konton wixii ka koreeyo waxaa la dhahaa dhibcaha lagu baaso pass mark haddii laakiin konton laga hoos maro waa valid mark dhibcaha lagu dhacay noqonaysa way isbedelaysaa marka pass mark waa dhibcaha lagu baaso erayga labaad waa accurate waa sax wax saxan erayga saddexaad waa aggregates celcelisyo ama isku dardarka natiijada erayga saddexaad waa candidate waa musharax ama arday yani candidate waa ka soo hadalnay ardayga grade 8 ka wuxuu candidate u yahay ama musharax u yahay in uu u gudbo secondary level dugsiga sare inuu u gudbo heerka dugsiga sare marka candidate waa musharax ama arday erayga ku xiga waa valid waa dhacay qof laga rabay dhibco keeni waay dhibcahaas waxa la valid midalan oo kale hadda waxaan ka hadlaynaa pass mark oo konton wixii ka koreeya ah wixii konton ka hooseeya marka 49 oo kale 48 oo kale ilaa laga soo gaaro 0 qofka hadduu keeno markaas qofkaas waxa la kala valid waay wuu dhacay qofkaas erayga ku xiga waa answers waa jawaabo kan ku sii xigo cheating waa qiska erayga kale ku xigo certificate waa shahaado kan ku sii xigo grade waa darajo kan kale ku xigo duration waa ku gudu jirid يعني waxaan waqtiga ay qaadanayso ama la sameeynayo waxa la dhahaa duration marka waa ku gudu jirid erey kale ku xigo waa present waa boqolay kan u dambeeyo instructions waa tilmaamo ama tacliimaad su'aasha koowaad marka hadii aan fiirino number 1 all candidates dhammaan ardayda ama musharaxiinta will get waxay heli doonaan eraygaas meesha ka maqan after the examination kadib imtixaanka all candidates dhammaan musharaxiinta ama ardayda will get waxay heli doonaan eraygaas meesha ka maqan after the examination kadib imtixaanka marka waxay helayaan waa certificate waa shahaado maxay noqonaysaa marka all candidates dhammaan ardayda will get waxay heli doonaan certificate shahaado after the examination kadib imtixaanka that's number 1 number 2 when you write marka u qortid eraygaas meesha ka maqan answers jawaabaha they are easy way fudud yihiin to make in la saxo when you write marka u qortid answers jawaabaha
sidaas markaa u qortid jawaabaha they are easy way fudud yihiin to mark in la saxo marka jawaabahaas ay qoraysaa accurate si saxa marka when you write marka u qorto ama aa qortid accurate answers jawaabo sax ah they are easy way fududahay to mark in la saxo marka ayadana sidaasay noqonaysaa that's number 2 number 3 is not allowed lagama ogolo in the examinations imtixaanaadka dhexdooda ereygaas meesha ka maqan is not allowed lagama ogolo marka imtixaanka dhexdiisa waxaa laga ogoleen maxaa waaye waa cheating waa qiska iyo inaa warqado ka fiirsatid iyo wixii la mid ah marka cheating qiska is not allowed lagama ogolo in the examinations imtixaanaadka dhexdooda su'aasha afraad ku xigto the total points of the examination is known as the total points dhibcaha guud of the examination ee imtixaanka is known as waxaa loo yaqaanaa dhibcaha guud ee imtixaanaadka waxaa loo yaqaanaa aggregates celcelis ama isku dardar marka the total points dhibcaha guud of the examination ee imtixaanka is known as waxaa loo yaqaanaa aggregates isku dardarka ama celceliska that is it number 5 out of 100 mark is known as out of 100 mark dhibcaha boqol ka mid ah out of 100 boqol ka mid ah marks dhibcaha is known as waxaa loo yaqaanaa boqol ka mid ah dhibcaha out of 100 waxaa laga wadaa boqol ka mid ah marks dhibcaha boqol ka mid ah dhibcaha is known as waxaa loo yaqaanaa percenti boqolkiiba that's number 5 number 6 you have to read waa inaa aqrisaa ereygaas meesha ka maqan waa inaa aqrisaa before sitting inta aadan u fadhiisanin for the examinations imtixaanaadka marka you have to read waa inaa aqrisaa ereygaas meesha ka maqan before sitting inta aadan u fadhiisanin ama u fadhiisanin for the examinations imtixaanaadka marka waxaasaa iska akhrinaysa inta imtixaan ku fadhiisanin maxaa waaye waa instructions waa tilmaamaha inaa iska akhrisid waaye you have to read waa inaa akhrisaa the instructions tilmaamaha ama tacliimaadka before sitting inta aadan u fadhiisanin for the examinations imtixaanaadka tacliimaadka marka maxaa ka mid ah yani matalan oo kale maadada la galaayo maalintaas oo kale warqadda marka lagu horkeeno tacliimaad ama instruction ay leedahay meelaa ku qoraysid magacaaga meel waxaasaa ku samaynaysid waxyaabahaas dhan waa inaa iska akhrisaa number 7 work hard si adag u shaqee micnaheeda waxaa waaye dadaal work hard si adag u shaqee ama dadaal as to score si aa ugu guulaysato above wax ka sareeyo ama ka badan pass mark dhibcaha lagu baaso marka work hard si adag u shaqee ama dadaal as to score si aa ugu guulaysato above pass mark dhibcaha lagu baaso abafkooda ama korkooda dhibcaha lagu baaso waa kasoo hadalnay waa content iyo wixii ka badan waaye marka dhibcaha lagu baaso waa content wax ka koraysaa u keentid marka ama pass marks aa u keentid dhibcaha lagu baaso korkooda u martid content iyo wixii ka koraysaa u martid you have to work hard waa inaa si adag u dadaashaa oo u shaqaysaa su-aasha ku xigto sideedaad is one waa mid ama qof who ready oo diyaar u ah to take inuu qaato ama galo examinations imtixaanaad marka is a one or is one waa qof ama ruux who ready oo diyaar u ah to take examinations inuu imtixaanaad qaato ama uu galo marka midka diyaarku waa in imtixaanaad galo ama uu qaato candidate waa arday marka candidate arday ama musharax is one waa midka who ready
oo diyaar u ah to take in uu qaato ama uu galo examinations imtixaanaad. marka number 8 na sidaas ay noqonaysaa. number 9 the period waqtiga ama muddada one takes ay qofka ku qaadanayso in an examination imtixaan is known as waxaa loo yaqaanaa waqtiga qofka ay ku qaadanayso imtixaanka maxaa loo yaqaanaa. su-aasha waa saas. the period waqtiga one qofka takes ay ku qaadanayso in an examination imtixaanka is known as waxaa loo yaqaanaa duration waa ku guda jirid yani waxaan muddada ama waqtiga lagu guda jiraayo ama ay qaadanayso. marka waxay noqonaysaa mar haddii la isku aqriyo the period muddada ama waqtiga one qofka takes ay ku qaadato that's good takes ay ku qaadato in an examination imtixaan is known as waxaa loo yaqaanaa duration ku guda jirid that's number 9. number 10 without pass mark la'aanta dhibcaha lagu baaso. ereygan wuu soo noqnoqday pass mark waa dhibcaha lagu baaso. without pass mark la'aanta dhibcaha lagu baaso one qofka has muxuu noqonaa valid qof dhacay yani qofka hadduu dhibcaha lagu baaso uu laado ama uu keeni waayo dhibcaha lagu baaso waa 50 iyo wixii ka koreeya ilaa 100. haddii 50 uu ka hoos maro waa haddii imtixaanka 100 lagu saxaayo. haddii 50 uu ka hoos maro uu keena 49 48 something ilaa 0 laga gaarayo qofkaas waxaa la dhihi karaa valid waay uu dhacay. marka without pass mark la'aanta dhibcaha lagu baaso one qofka has valid wuu dhacay waa valid waay. number 11 you should write waa inaa u qortaa all ereygaas meesha ka maqan. se u qoraysaa clearly si cadna qortida laga raba wax meesha ka maqan ereygaas micnaha uu bixinayo. marka muxuu noqon karaa waa answers. you should write waa inaa u qortaa all answers dhammaan jawaabaha. se u qoraysaa clearly si cad inaa u qortida laga raba oo isku dhexyaacin si aaduu qofka saxaayo ay ugu sahlanaato inuu garto midda saxan iyo midda qaldan adigana xuquuqdaada dhibcahaada aadan ku weynin. marka you should write waa inaa u qortaa all your answers dhammaan jawaabahaaga clearly si waadix ah oo cad inaa u qortid waaye. su-aasha 12aad ee ku xigto waxay dhexaysaa good ereygaas meesha ka maqan enable one qofka waxay awood u siinaysaa to go in uu aado a good school dugsi fiican ama school fiican ama dugsi fiican. marka la leeyahay waxaa loola jeedaa wuxuu u gudbaa dugsiga sare. marka a good ereygaas meesha ka maqan oo good ah enable one qofka waxay awood u siinaysaa to go in uu aado a good school fiican inuu aado. marka ereygaas meesha ka maqan ee goodka ah waa grade a good grade darajo fiican. enable one qofka waxay awood u siinaysaa to go in uu aado a good school dugsi fiican inuu aado. micnaheedu maxaa waay dugsi fiican inuu aado inuu dugsi sare u gudbo laga wadaa. marka a good grade darajo fiican. enable one qofka waxay awood u siinaysaa to go in uu aado a good school dugsi fiican ama school fiican. halkaas marka waxaa ku soo dhammaaday 12kii su'aal meelaha bannaan dhammaystir ahayd. waa filaynaa inaa wax badan ka faa'iiday. marka haddii ay tahay marka kugu horreysay aad soo booqato janaalka waxaa kaa dalbanaynaa ama kaa codsanaynaa in aad nagu soo biirto aad subscribe dhaato. haddii hore ay subscribe kugu ahaydna inaad muuqaalka laagisiiso oo aad laag saarto sharna garayso. waa mahadsan tahay. assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.